homa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu homa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa hamun looguma dhintee hoobantiisad cunta dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa ciidadaad haybsataa hamun looguma dhintee hoobantiisad cunta dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa ciidadaad haybsataa hawkar iyo maaha goob farasiyo lama degaan habaasiyo boodhaho carradu hoostay martaa waxay huwataa caagaan hawkar iyo maaha goob farasiyo lama degaan xafladeedu maanta waxay daaran tahay hambalyeynta ardaydeenii dugsiga sare ka qalinjebisay sanadkan 2020 oo aynu doonayno inaynu hambalyo iyo duco aynu isugu darno ayay inta badan daarnaan doontaa iyo dardaaran aynu siin doono waalidka iyo ardaydaba ugu horeyn ardaydaasi sanadka qalinjebisay oo tiradooda ay dhammayd 73 arday dhammaantoodna ku baasay markaas darajo aad iyo aad u wanaagsan oo 13 arday oo ka mid yahay darajada eeda ay ku baaseen inta kale ugu badan ay B markaa ku baastay oo marka loo eego iskuulada dawladda ee gobolka heer sare markaa aan ka taaganahay taasina alxamdulillah rabbil caalamiin ay tahay oo ilaahay lagu mahadnaqo ay tahay ayaan hambalyadaas iyo bogaadinkaasi ardayda aanu siinanaa taasi waa taa markaa ardayda hambalyadeeda haddii taariikhda iskuulka aanu dib ugu yar noqdo dufcaddani waxay noqonaysaa marka laga soo bilaabay intii waddanka lagu soo noqday inkastoo iskuulka la dhisay 85 meelahaas la dhisay laakiin markaynu dufcad ahaan isku xidhiidhina inta waddanka lagu soo noqday dufcaddii ugu horreysay ee form 4 ee ka qalinjebisay dugsiga waxay ahayd 2003 markaa dufcaddan maanta qalinjebinaysaa waxay noqonaysaa dufcaddii 17aad ee ka qalinjebisa dugsigeennan Arabsiyo Secondary School taasi oo markaasi guulo fara badan had iyo jeer lagu yaqaanay Arabsiyo xagga waxbarashada tiina ilaa maanta ay noo socoto alxamdulillah rabbil caalamiin meel wanaagsan aynu taaganahay marka ardayda maxaan ku dhahdaa iskuulka saddex baan ka dhigiyo arday waa kuwa aanu hambalyeynayna ducadii hambalyada isugu darano ee qalinjebinaya waxaan leeyahay markaa ardaydaas qalinjebinaysa cilmiga baxday waxaad dhamaysateen waxbarashadii dugsiga sare oo general ahayd waxaana qaadateen shahaadadii General Certificate for Secondary Education taasi oo marka hore dee wax guud ay ahayd aqoon guud baranayseen laakiin imika waxaa idiin bilaabmay aqoontii takhasusaadka ahayd oo jaamacadda ardaygu galo dee arday kastaaba wuxuu takhasus doonaa cilmigii gaarka ahayd fakalkii gaarka u baranayay uu doonayay marka ardayda waxaan leeyahay haysdhiganina dadaalkiinii hore samayseen dadaal dambana ku dara
waxaa la idhahdaa had iyo jeer ala lagu mahmahaaye marka xagga geela iyo waxaa soomaalidu waxay dhahdaan soomaalidu ninba waxay dhahdaan ninba siduu daajo ayuu ka maalaaba la idhahdaa geela marka dadaalkiina hadba sida dadaalkiina ka dhigtaan waxaan la hadlayaa ardayda foonfoor ka baxday ayaa hadhow himiladiinna iyo hiigsigiinna iyo hankiinuba weydinku doomi doonaa dadaalkiina sidaad u gashaan marka waxaan leenahay ardaydaasi dadaalkiina halkaa ka sii wada heer fiican unba idiin bilaabmay waxbarashadii taasi waa taas ardayda kale ee imiga soo gashay iskuulka waa ardayda foonfoorada ah ee imiga soo galay ardaydaana waxaan leenahay waxbarashadii sare ayaa idiin bilaabantay markaa dadaalkeedii jaaniska fiicanna waad haysataan iminka idinku marka waa inaad maxaanku dhahdaa dadaalkeeda muujisaan oo afartaa sane idiin hadhay aad wacdaba muujisaan idinkuna ayaan doonana haddii laha idhaahdo taasina waa taa ta kale ardayda kale aan u dhaxaysay intaasee foomakan aan hayn arday sii joogtay dee waxaan leenahay idinku marka horeba iskuulku waa sii joogteen kaalintaa iminka ay ka baxeen iminka ardayda foonfoorka ee naga baxday kaalintoodiia gashaan bala doonayaa oo dadaalka intaa ka sii barisaan oo wacdara kan ka sii wanaagsanna aynu sanadka dambe sanadaba haddii laha idhaahdo aynu muujinay insha allahu tacaala ayaan ardayda ku boorinaya taasi waa tii ardayda hadalka waan soo koobayaa waxaan la hadli doonaa waalidiinta ardayda ayaan doonaya inaan la hadlo allahuma salli calaa maxamed waalidiinta waxaan leenahay waxaad waalidow aada hariya habeen u socotaa eedo kalahasaa waa in ilmahaagaasi uu wax noqdo oo waxbarashada heeru ka gaadho waxbarasho akhlaaq dhaqan iyo diin intaba waxaan doonata inaad ka wanaagsanaado annaguna haddaanu nahay maamul iyo macallimiin waxaanu u taagannahay halkaas hariya habeen u taagannahay eenaan u seexanayn aan u soo jeednaa eenaan saacad u fadhiisanayn waxa weeyaan in ardaydeenaas iyo ubadkeennaasi mustaqbalka fiican ay gaadhaan insha allah markaa waxa markaa waajib inagu ah weliba waalidkaan aada ugu adkaynayaa isku xidhka iskuulka had iyo jeer waalidku waa inay maxaanku dhahay ka warhayaan ardayda oo ardaygu hadduu ka dhex baxo macallinkii ama iskuulkii iyo waalidkii dhexdooda uu ka faa'iidaysto oo xaggii waalidka aanay ardaygii amba ardayga aan waru haynin waxaa laga yaabaa intu kaa soo labisto inuu ku yidhaahdo iskuulkii baan tegey iskuulna aanu kuu tegin taasina waxay noqonaysaa khasaare inagu wada dhacaya markaas waalid ahaan iyo iskuulkaba inagu dhacasa waxaan leeyahay markaasi waalidiinta haddaynu doonayno in ardaydeenu iyo ubaxeennu ay mustaqbal ifaya oo wanaagsan ay gaadhaan aynu hareeraha iska taagno waalid iyo macallimiin iyo mas-uuliyiin cid walba aynu hareeraha iska taagno si aynu ubadkeenna waxbarashadooda qiyamkooda akhlaaqdooda diintooda dhaqankooda intaba aynu kor ugu qaadno markaas taas ujeedadiisa inaan kusoo dhoweyno ujeedadadu ay tahay inaynu ku sagootina ardaydii baxday sanadka 2020ka kuna soo dhoweyno ardayda soo gashay 2020ka kusoo guurtay imtixaankii eedheerka waxaan leenahay labadoodaba hambaliyo maanta marka la eego iskuullada dawliga ee gobolka iyo maroodi jeex dugsiga sare ee arabsiyood maanta wuxuu ku jira waa kaalinta koowaad 13 arday oo eeya iyo 56 arday oo B positive u badan waxaan leenahay hambaliyo guusha soo weysay waa guul qaran hambaliyada kabacdi waxaan aad u salaamayaa saddexda jaamacadood ee New Generation Timacadde iyo jaamacadda Golis waxaa kaloo salaamayaa kormeerka gobolka gudoomiyaha degmada waxbarashada gudoomiyaha degmada magaalada Arabsiyood gudoomiyaha hore degmada magaalada Arabsiyood madaxda kale dhammaanteed intaan xasuustay iyo intaan iloobiba ee ka soo gashay martishartu waxay aad baan ku mahadnaqanaa waqtigiina qaaliga aad na siiseen وهذه بالمهسنتي انت كفعلي وحقوق لها اسكولة الدولية
هو يسكولون نظام مساردين وحبرشو وحنو لنا أنه كورميري وحنو لنا قدومية وحنو لنا قدومية كوهين وحنو لنا قدومية قولك إلهي الوزير هذه أيامنا وحلقة نقدان أنت أصلا ملحا وديارين نقا يقال رقم حلنا مسارده أجي أدب مسنتي ملحا يلا دمانتون عيد كاسته ويسكول كشعل هرمرين تيزا وليبا قارهان والدين تدمانتون حلنا همبليو وحاجة وصلنا وطبيعي قبلتينا والدين تقصوا طبعا وحلنا أدب يكون همبلين الله ونقر حسين الله ينقر حيو السلام عليكم. هل من أيام كحكسين لها كل مهد الكوبات لها يا إسكالة الحمد لله رب العالمين مركز بعض محمد إسكالة معمول كيوم معلمين تا حفلة قيمة له نسكبون من ذي ينوسوا أجاسمي هل كي يقول كنيه أيام مهد إسكالة مركز بعض يوم مركز التحاب مهد واحد إسكالة أرضي دا إنه هل كان كبير إنسان أمام حفلة دول تجوبنو أي مهم مهد علينا هل من ما أرضي دا ورلها كمية أنا لها وحوين هل يوقف معاً يتبع بدن أيات جلسين وحبرشة سيدي هادو جلسين إن أتكسي أبقى دام قوتاً أو ما أنت واحد ورد شرطي لبعض وحبرشة إلهي واحد ميقر تشيلنا مستقبل فيا أو ناكسنا إلهي بحيري إنه هجو أيام ميقر تشيلنا طلبات هل منا ونيجو تردار لا هل كمية نكو تردار يا أرضي ده وحوي وحد هو تيم شرفتي معلمينتا شرفتي والدكين يا شرفتي قوابتا بمحايا اللي تقبلها كسو جديد ما وضعها تكتين أخلاق دينينا ولاك سنعتو أخلاق وحاي كمتها عافما قبكا وحاي كمتها محايا هيدين قفك الشخصية ديسة وحاي كمتها ترتاك وقفك علمك وبرتك حتى أخلاق كوكتها أخلاق دينها ولاك سنعتا يا الله هاي علمك انت أبرتين ديني يمادي بعضها اللي وافعه انت يليها تسنى الله يلي فضيه تاسواتي عبد هنوك على طلبات يا عمي halka waalidiinta maamulka dugsiga aad ayaan ugu mahadnaqaya halkan xoojinaya waxa weeye kelmadda uu leeyahay isku xidhnaano run ayuu ka sheegaya inteena maanta iskugu joogtay waalida kollayaan waxaan hubaa ka saynab haan marka waalidahan inta ku timaada amba ku xidhan dugsiga inay yar tahay waxaan jecelahay inayna lacagta u bixin waxaan jecelahay inayna aroortii u toosin inayna ilmaha soo bixin laakiin waxa muhiim ah inaynu waalid macallimiinta ku xidhnaano oo aynu ogaano xiriirka ilmaheena iyo macalinka u dhaxeeya farqiga uu leeyahay waalid walba markuu ilmo walba markuu gurigooda joogo ama uu waalidkiisa ag joogo waa ilmo akhlaaqda waa ilmo wanaagsan laakiin marka uu inaga soo baxo allahu yaclam dugsiga bal akhlaaqda uu ku leeyahay iyo xiriirka uu macallimiinta la leeyahay inaynu ogaanaa waa muhiim waxbarashadiisa inaynu ogaanaana waa muhiim waalid ahaan haddaynu nahay waxaynu nahay isku xidhka ardayda iyo macallimiinta markaa waxaan ku dardaari lahaa macallimiin maxay hayday waalid inaynu ka war hayno carruurteena taasi waa taa macallimiinta iyo maxay hayday maamulkoogana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin midhihiini aba tacabkii aad geliseen ardayda ayay ka muuqdaan jasaaka allahu khayr ayaan leeyahay macallimiintu aad bay u sharaf u leeyihiin aad baynu u ammaanaynaa aad baynu u dhiirigelinaynaa dugsigan arabsiyo taariikhdiisa kolley waynu ka wada dharagsannahay maanta waxaa injineera socda iyo waxa macallimiin jira iyo waxa dhakhaatiir jirta iyo waxa kalkaanisooyin jira kolley dugsigan arabsiyo intii ka soo baxday waa la og yahay marka waxaan leeyahay dugsiga aynu tayayno waalid ahaan iyo maxay yaday guddoomiye ahaanba guddida jaamacadaha ka socda ama mas-uuliyiinta jaamacadaha ka socda hal erey umaa fari lahaa halkaa erey oo weliba codtiya waxa weeyaan ilmo walba kolley isku wada ma ahaayeen waalidku jeer bal ardayda inay dib u eegaan oo ay soo dhaweeyaan taana waa fari lahaa aad iyo aad iyo aad ayaan idin salaamay qaala allahu tacaala la-in shakartum la-asiidannakum ilaahay wuxuu yidhi haddaad ii shukri naqdaan waa idin siyaadinayaa alxamdulilah 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 baan leenahay waayo oo ah roobkii baa inoo da-ay nabadgelyaynu haynaa caafimaad baynu haynaa xafladdii baan dhigaynaa alxamdulilah alxamdulilah inaynu idhaah ayaa inagu waajiba waxaynu hayna cidima hayso nabadgelyada somalilan ilaahayna siiyey ayaanu ilaahay u mahadinaynaa inuu ilaahay noo siyaadiyo caafimaadku ilaahayna siiyey
barwaaqadii roobkii inoo daaya alxamdulilah baan leenahay waxaan kaloo u ducaynaynaa ardayda halkan ka qalin jebinaysa waxaan leenahay rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam udlubu lcilma walow bisiin cilmiga dalba ardusiinna ha noqdeen maanta cilmigii agteenna ayuu yaallaa adoo xaafadaadii ka toosay ayaad meel dhow ka helaysaa taasina waa wax ilaahay loogu shukri noqo waa fadli ilaahayna siiye taasina إلهي بمهدد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إنه فرحة دبال دقينا شو قروح بدن أو روبا أو صحة الكون وصعطة أي حفلة دبال دقينا وحن همبريا ودريا أرضينا فوفار كلا بلا كويا سجالية توكل يلا بلا كويا يلا باتركها لو دبال دقينا مات أو عن أركض Soomaaliya bay sumcad u soo hooyeen gaar ahaana gobolkeena kasii gaar ahaana Arabsiyo oo oran kara maarkii sare ayay ku wada baaseen waxaan leeyahay wiilaliya gabdhaba hambali insha Allah bismillaahi kariim ardayda waxaan u sheegayaa dardaara waxa u dhamaysay hooyo Sayid oo waalida ayaa dardaara dhamaysay أنا واحد يقول لي رجالنا يوم إنه قيمة جارة أما أهمية جارة شهادة الدولية أعطيك شهادة الدولية أسنتها إنه قيمة جارة ليه هدو سكولشيب وبحق هدو ماكله هدو دولة كشخة اليوم إنه أهمية جارة ليه هاي مو شهادة الدولية أسنتها حفظ هذا يسألنا سجل دولية الدولية عمري أنا وعند الله هاي مرضى هي فرصدحات كل هذا تصالح هذه النقطة براسية بيت براس وين بالستة ما كسروية بكل كذا تشوفين قبل كان يتقبل اللي بقى السمعة وهينه إن شاء الله بإذن الله الكريم دردار هو الذين وين وفي قابل ورحت الطلبة جدا بيسا كما أنت همبليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بقى يبودا قيمة الكوبات وما تحفلتها وحنكبر واقعنا laba arday oo scholarship ah labada arday waxay noqon doonaan ardaydii academic yearkan ugu sareeyay hal arday inamada ayaa leh ardaydna waa hablaha si aynu u balance gareyno ardaydii ka soo baxay secondary qodobka labaad school new jaamacadda new generation caqabada ardayda inta ugu badan ay loo soo gudbinayeen markaan wareysanay waxay ahayd xagga transportation-ka oo aanay hore ardayda waxa weeyaan ay qaadi jireen baska kooban ee jaamacaddu isagana bas weyn ayaa loo samayn doonaa anagoo ka shidaal qaadanayna tirada badan ee ardayda ay academic yearkan soo baxday una baahan in transportationkii loo fududeeyo si free ayaa lagu qaadi doonaa waxaan u geli doonaa kelmad kooban ka oran doonaa fursadaha kala duwan ee jaamacadda gulis idiin wada jaamacadda gulis iyadoo tixgelinaysa baahiyaha kala duwan ee ardayda gobolka ay qabaan waxaanu deeqad kala duwan ugu talagalnay berito holaha xafladii jaamacadan aan ku daahfuri doonaa dhammaan ardayda gaar arabsiya ka imanaysa laba iskuul baa ku yaala degmada arabsiyo labada iskuulba iskuulkan gaarka degmada arabsiya secondary school waxaan ugu talagalay inanka iyo inanta ardayda ugu sareysa ka mid ah inaanu scholarship siina haddii ilaahayda waxaanu sidaas oo kale deeqahaasi waxaad moodaa inaan jaamacadaha kala simanahay laakiinse waxaan ugu talagalnay maaha percentage gaar ah maaha discount gaar dhammaan ardayda arabsiya ka imanaysa fakalkii doonaan ha dhigtaan inaanu discount dhammaantood loo sameyno kasi ay ka siman yihiin haddii ilaahayda aniga farxad gaara ii tahay maanta oo anoo kormeerano ardaydan in badan isku soo noqnoqonay dardaaran badanoo siiyey way dhabeeyeen waa dugsiga labaad ee gobolka marka la yidhaahdo ugu sarreeya marka celcelis la yidhaahdo ardayda marka la isku celceliyo dhammaantood iskuulku wuxuu darajada uu ku baasay waa b celceliska guud maadooyinka qaar mustafa cabdi abukar oo hor fadhiya oo sanad walba aynu halkan ka sheegno arabsiyo malaha waxaaba celina ma siiso sanad walba ardaydu kalaaska ugu dhigo waxay keenaan ebalas waxaan leenahay mustafa waad ku mahadsan tahay dadaalkii aad gelisay
ardaydana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin abaalka aad Mustafa u celiseen ee dadaalku idingeliyay aad muujiseen maadooyin badan baa ahaa warsamo kale isla ka mid oo sanadkan ardayda ay wadaceen keeneen intooda badan intaa markaan ka tago waa ii farxad anoo kormeero guud oo gobolka baan intaa hore isugu soo noqonaynay magaca labaad ee sitaana waa jaamacadda Timacadde iskuulku waa iskuul dawliya jaamacaddan ka socdaana waa jaamacaddii dawliga arabsiiyo jaamacadda Timacadde iskula cusub muddo badan bay imika soo wada socdeen oo dhammaan macallimiinta iskuulka ka hawlgasha marka laga reebo warsame oo wada Timacadde dugsiga sare arabsiyo waxaa la aasaasay ama dhismihiisaba waxaa la bilaabay 1982 waxay xilligaa degmo ma ahayn arabsiyo laakiin waxay ka mid ahayd tuulooyinka ka mid ah dalkii loo jiray Soomaaliya laakiin yeelatay dugsi sare jacayl yahay looguma samaynin laakiin ardaydii qaxoontigii Soomaali galbeed ee 1977 arabsiyo ku soo qaxay ayaa markay eedhadkii ka baxeen la yiri meel dugsi sare waa loo sameeyaa oo xukuumadda ayaa wadatay saas darteed waxay ahayd meeshii kaliya degmo ahayn ee Soomaaliya gebigeedaba dugsi sare yeelata waxay waxbarashadu saa kolba dee meel soo joogsato oo kolba meel soo marto oo jaamacadda loo tago xamar markii dambe tii inoogu dambeysay xamar la tago oo arabsiinta laga tago jaamacad xamar loo doontaa waxay ahayd 1988 ee Soomaaliland waana dadaal ay muujiyeen arday iyo macallinba aad iyo aad bay farxad ballaaran ay ugu tahay waxa weeyaan waana isku ogeynaysaa u dadaalaan iyaga iyo kuwa dambe soo socdaaba ardayda waxaan farayaa hal fariina waxaan leeyahay ardayda reer arabsiyo dugsiga aad ka baxeen dib u soo eega markaad wax barataan waayo iskuulkan wuxuu soo saaray rag badan oo aqoon-yahan oo Soomaaliland ka shaqeeya oo halkan aanu ugu bilownay 19 kalaaskan oo bilaajiingada oo cadceedda xilliga xagga xigta aanu u rarno wadanka ka shaqeeyo madax sare ka ah marka waxa weeyaan bilaadmigu halku ka soo baxay waxbu ku ceshaa markaad wax barataan magaaladiina iyo iskuulkiina dib soo eega idinkan intaasaan idin oranayaa intiina wax barashada shaqeynayda waan u hambalyeynaya macallimiinta isku xidhan ee dadaalka badan ee dugsiga joogta waxaan leeyahay halkaa dadaalkiina ka sii wada waalidiintana waxaan leeyahay siduu maamuluhu idiin sheegay ardaydiina ka warhayaa ardaydan waxaa laga yaabaa qaarkood in waalidkii dhalay annagoo aanu uga warhayn badnayn annagoo mas-uulkiia oo aanay ogeyn ilmahoogu meel wax ku barto markaa waalidku sidaa maaha duniduna sidaa maaha ilmaha wax baranaya waa inuu waalidkiisu saacad ula socda markaasuu macallinku wax bari karaa haddii kale waxba ma baranayo ka warhaya iskuulka iyo ardaydaba dee waa waalid badaniba ma jooga 4 dumaraa joogeen waalidiintu maba yimaadaan kolka ardayda xafladda lala hadlaye waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa qolada jaamacadaha oo door mugle ka qaatay baahida ardayda saddexda jaamacadood ee halkan inala jooga oo anigu dee horta Timacadde si weyn baa iyadu waan uga heliyaa kuwa kale laakiin labada jaamacadood ee kaleba xiriir weyn oo kala naga dhaxeeya new generation bay inantaydii baa dhigataa golis carruurtaydii horaa ka soo baxday aniga laftayda markii iskoodka la sameeyey ardaydii ay ku fureen golis jaamacadda oo bilow baanu ahayn markaa waxa weeyaan waxaan leeyahay aad baad u dadaasheen waxay wax ka badan oo la idinka baahan yahay waxa weeyaan arabsiyo waa degmada koowaad marka Gabiley laga yimaado magaalada Gabiley ee lagu tala gelayo arday wax barata oo diiran oo jaamacad tagi karta oo muuqata arabsiyo joogan marka inay jaamacaduhuna inoo soo tartamaan lafteeda deynaga kasbanaan leeyahay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya macallimiinta iskuulka joogta ee aqoon-yahanka ah ee cilmiga diinta iyo maadigaba ka dhigta iyo dadaalka badan ay geliyaan tii waliba la riixriixo iskuulada dawladood moodo dadku imaga inay si kala u yar socdaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waanan idin garab taaganahay mar kasta sidaana waan idinka sugaynay oo waan idinku wadno waan idinku garab taagnay aniga iyo in badan oo kale kormeerka oo hawshiina ogey intiina kalena halkaa ka sii wada waxaan halkan ku guddoonsiinayaa shahaado sharaf aan ugu talagalay maamulka iyo macallimiinta iyo ardaydii kaalinta fiican ka soo hoysay imtixaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi maanta farxad weyn bay noo tahay runtii
وحفلتي اللباد كسوق يبقى سكندرية وحوي عربية سكندري سكول فرحت وين ويت هاي إن هل كان aynu هاي نعرض 13 عرضي oo A plus ku baasay waxa A ku baasay aad iyo aadna runtii degmada sharaf bay ugu tahay maamuusna way mudan yihiin waanan u hambalyeynaa waxaan leeyahay waan idin hambalyeynaa ilaahay waxa weeye miisaanka xasanaadka idinku daro dadaalka samaynaysaan inta ay in ka badanna insha Allah dadaalkii waa idin harsan yahay oo jaamacadii baa idin harsan waxbarashadii idin kama dhamaanin marka waxaan ilaahay idin ka rajaynayaa in waxa weeye wadada guusha ee maanta uu idin bilaabatay in ilaahay idinku guuleeyo oo waxa weeye inta iyo wixii ka dambeeya guushu sida u socoto oo tartankii jaamacadda taagan oo waxa taagan wixii ka dambeeya inaad waxa weeye digriidaada aad kor u socoto oo master iyo waxa weeye PhD baad kor u socoto waana yar yihiin ardayda inta dadaalka sii wadaaye waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan ardaydii guusha yeesha ee hore u sii socda wuxuu baan ku dardaarayaa ardayda inay dadaalka badiyaan waxa weeye cibaadadana ay aad u ilaaliyaan runtii waxa weeye dhalinyaradu qofku ka dadaal badan yahay qofku ka cibaado badan yahay buu ka dadaal badan yahay marka xaqiiqada la eego qofku cibaadada kaga waxa weeye ilaalin badan yahay ayuu dadaalkiisa iyo guushiisuna kaga badan tahay ilaahay bay nala hadlay oo ina yidhi aayad quraana afa xasibtum annama khalaqnaakum cabasan wa ilayna laa turjacuun ma waxaynu u malaynayaan dadku in ciyaar loo abuuray oo aan la xisaabin doonin waxa weeye xisaab baa inoo taalla dadaalkuna waxa ugu horeeya in la dadaalo dadaalka ilaahay ama awaamirtu ina siiyey oo aynu fulino waxaan aad iyo aad ugu dadaalayaa ardayda waxa ugu dardaarayaa inay ku dadaalaan cibaadada wax waloo dhanna oo furmayaan insha Allah furaha dadaalku waa cibaadada iyo amarka ilaahay oo la fuliyo aad iyo aadna runtii waan ugu hambalyeynaya ardayda halkana waxaan dhamaantood waxa weeye waqtigooda qiimaha badan ay noo horeen uga mahadcelinayaa maamulka heer gobol ee waxbarashada iyo maamulka degmada iyo dhammaan marti sharafta inoo joogta gudoomiyihii hore ee degmada Cabdilaahi Cabdi Farax dhamaantiin waxaan idinka mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan ee aad soo siiseen iskuulkan waxaanan halkan waqtigun baa degdeg igu noqday aan u ballan qaadayaa maamulka iskuulka inaan waxa weeye ku maamuusno shahaado sharaf waxa weeye aan ugu talagalnay secondary-ga macallimiinta iyo maamulka guusha aad soo hoyseen waa guul degmada aad u soo hoyseen dadaalka aad samayseenna waa dadaal waalidkiinii iyo macallimiintiinii iyo shacabkii reer Arabsiyaba aad guul u soo hoyseen weeye aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa dadaal intaa ka badanna insha Allah waa inoo ballan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sarreeyay iskuuladii dawliga ahaan iskuulkeedii baa ugu sarreeyay kolkaa hambalyada markaa waxaanu siinaynaa gudoomiyaha degmada ee waxbarashada waalidiinta iyo ardayda Arabsiyood intaasi ayaanu siinaynaa hambalyada guud waayo waxa weeyaan maanta gobolka iyaga hogaaminaya oo waxa weeyaan labadii meelood ba haysta